بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال سو دواده maanta adiga oo daawada ah iyo aniga oo daadihiye ahba waxa martino ah Cabdiweli Cumar oo ah fanaan jilaa iyo hage ninka sheekh kulliga ah ayaa maanta martino ah Cabdiweli Cumar soo dhawo Ibrahim waa masantahay waa dhawahay farxada ay tahay maanta ina barnaamijka aad marti ugu tahay sidoo kale codsigayga aad ka soo jawaabtay martiqaadkana aad ma aragtay si qurux badan runtii u ajiibtay waxaan kala sheekaysan doonaa waxyaabo badan fankaagii waa marka qaar waa dhaxgeli doonaa sidoo kale wax iska weydiin doonaa aflaamtii aad soo jeshay iyo filimka hadeer aad ka looga daba dhacay ee haboon hadeer socda su'aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinayo dabcan in muddo ah ayaad fanka ku soo jirtay goorma ayaad ku soo biirtay xageedsa markaas joogtay su'aashan dhowr mar waa ka jawaabay haddana waan kaaga jawaabayaa fanka waxaan ku soo biiray 2009 dalka Itoobiya aan joogay waa sax meeshaasaan ka soo bilaabay fanka waayahay Itoobiya joogtay markaas koox maad ku biirtay mise waa jirtay koox badan aan ka tirsaneen oo markaas meesha aan ku aasaasnay waxay jirtay kooxda ugu horeysay Banaadir Boys aan dhihi jiray markii dambe haddana koox kale taas la shaqeynay waxa kamid ahay dadkaas la soo shaqeynay Asad Dheere oo xitaa qaaday heesaysa kamid ah difaac iyo dagaal oo aan isla soo shaqeynay heestii ugu horeysay asaa ii sameeyay saaxiibkay Asad ما شاء الله maxaa kale to fanaaniin badan oo soo shaqeynay way jiraan waxa kamid ah Saalax Carab kamid ah marka xagga joogna teamkaas isla soo shaqeynay marka asxaabta dhamaan waa salaamaya waxa la yiraahdaa teamkaas isla soo shaqeynay waa gartay Itoobiya waa ka soo laabatay Muqdisho timid koox waxa jirtay aad garwadeenka ahayd oo la xidigaha Muqdisho xagee bay ku dambeysay xidigaha Muqdisho waxay ahayd koox aan markaan Muqdisho imaanay aniga iyo asxaabteyda ma aragtay aan isla sameynay oo ma aragtay koox ku abuurantay ma aragtay iskaashi iyo fikir ma aragtay la wada leeyahay ku bilowday ahayd marka kooxdaas way hirgashay magaalada Muqdisho ma aragtay fankeedii dib u soo celisay oo maxaa la yiraahdaa markaas dhahayn micnaheedu ma aha fankii Muqdisho ma oolin laakiin fankii dhalinyarada iyo heesaha jaceylka dib u soo noqotay marka kooxdaas xidigaha Muqdisho way kacday Muqdisho maxaa la yiraahdaa way qabsatay adduunka oo dhan ay qabsatay dad badan ay iga horeeyay oo hoggaanka soo qabtay laakiin mar walba waxaan kamid ahay jilib culista kooxda mar waa jirta aniga gudoomiyaha kooxda la ii doortay maxaa la yiraahdaa hada markii dambe kooxdii waa si shaqeyn weysay oo qof walba ugu kala daneystay duruufa yimid waa la kala mashquulay waaran dabcan xidiga waaweyn oo hadeer fanka Soomaaliyeed caanka ah ayaa qayb ka ahaa ama fanaaniin badan ka soo aflaxay oo kooxdaas ma aragtay kamid ahay oo hadda dadka Muqdisho uga caansan ay kamid yihiin aad ka xusi kartaa wallahi dhalinyarada Muqdisho hadii la dhawaabo kooban yihiin waqti waxa kamid ahay kooxdaas dadkii ku soo baxay oo ma aragtay kamid ahay oo nagala shaqeyn jiray dayaxdal nuursha kamid ahay maxaa la yiraahdaa markii laga reebo jilib culisteena waaweyn sida Maxamed Jaamac iyo aniga iyo Xaawi markii laga reebo dhalinyarada waxaan ka hadlayaa oo daad ahaan naga yaray waxa kamid ah dayaxdal nuurshe qadarkeeyo Axmediyo Saciid Taariikh ma aragtay Caadil Bagabaga dhalinyaro badan oo ma sha Allah oo kooxda ma aragtay nafta agdhiga ayaga laftirkooda juhdi badan ku bixiyay waa urursateen mal dhihi marka xulkii Muqdisho dhana ku jiray marka kooxda saasay ahayd aad iyo si fiican u fahmay waxa hadeer la isweydiinaya Cabdiweli Cumar fankii iyo heesii ma joojiyay mise wali waad ku jirtaa oo container heesaha nagu soo foolay mar dhaxdaas fanka waa ka maqnay oo muddo adiga 6 sano ama 7 sano ugu dambeysay adiga xitaa 8 sano ugu dambeysay iska dheh fanka ma ku ahayn sida caadiga ah joogto kuma ahayn waan ku jira kuma jirin haddeertaan sanadkan 2022 filimkan ka soo muuqday musalsalka Haboon markaasaan ma aragtay
aan xoog ka saaray oo aan dib ugu soo laabtay intii ka horeysay waxa waaye maqan joogan ka ahay waana jooga waana ka maqnaay aad iyo cabdiweli aflaam fara badan ayaad jishay kana soo dhex muuqatay qaarkoodna doorka waxaad ka qaadatay hage ama director goormaad ogaatay inaad dhankaas ku wanaagsan tahay markii ugu horeysayba oo aan fanka ku soo biirayay hibadeeda ama jaceylkayga wuxuu ahaay inaan wax jilo oo aan jilaan noqdo markii hore waxaan ku bilaabay dhalinyaro ahayn waxaan dhigan jirnay meel kalaab taekwondo karateega u taqaano Soomaalida dhigan jirnay markaan meesha dhigan jirnay marka meeshaas waxaa ku baranaysaa habka dagaalka maxaa la yiraahdaa karate markii la yiraahdo taqaanaa nabad ma taalo meeshaas marka meesha aan ku jirnay laba qofood aan Soomaali ku ahayn aniga iyo Axmed Halgan waa taqaanaa labadeena bis Soomaali ahayn marka macalinka meesha karateega wuxuu dhihi jiray isku daya inaad filmo gaagaaban oo action ah sameeyaan isku daya dhowr muuqaalo filmaha sameynay oo actionkaas iyo isku jira jacayl ah qaar isla sameynay team Ethiopian ahay haddaba qaarkood DVD ku haya laakiin ma soo dhigin social media ma soo galin adii wixii marka aan sameynay waa nala qurux badnaadeen meeshaan ka sii wadnay inaan maaragtay anigana marka safarkayga meeshaas ka soo bilowdo waa tahay ma noo sheegi kartaa filimkii ugu horeeyay ee aad door ku yeelato ama aad wax ka jisho jacayl dulqaad ala dhahay jacayl dulqaad filimkaas waxaa ku xigay filim kale oo jacayl malacag baa la dhaho oo aan anigaba sameeyay maaragtay anigaana qoray director ka ahay anaan actor ka ahay waagaas waxaa jirta abaar ah maaragtay wax qof wax ku qoro film ama ku director gareey way yareetay marka ana isku sameeysan jiray wax walbo maaragtay xumaadaan ha fiicnaadaan maaragtay waa isku aadisan jirnay waa gartay marka jacayl malacag baa ku xigay xageed joogtay markaas Addis Ababa labadaas film baa Addis Ababa ku sameeyay mid kale oo hagar la dhahay Addis Ababa ku sameeyay wixii ka dambeeyay Muqdisho imaaday film maxaa jiray oo aan kaabalaadar ka ahay oo aan wali asagana maaragtay culeysii caqabada jirtay oo aan soo bixin film kale waxaa jira actor aan ka ahay oo Amakaag la dhaho aroos iyo Amakaag oo asna Muqdisho ku sameeyay filmkaas wali juhdi badan iyo tayo badan lagu sameeyay laakiin soo bixitaankiisa waqtigiisa wali waxa uu dhiman yahay wali soo bixin laakiin trialkiisa goosgooskiisa wuu ku jira YouTube-ka wali keegi xitaa hadda uu yaalaa filmkaas asagana film tayadiisa wato maxaa la yiraahdaa dad badan oo miisaan leh oo Muqdisho ah ay ku jiraan warmo soo baxay markaa isaga naftiisa wallahi waxay ku xiran tahay teamka production-ka waqtigii uu qorsheeyay inuu soo baxo inkastoo waqtigii loogu talagalay uu waqti badan ka soo wareegatay filmkaas waxaan bilaabnay duubistiisa 2014 ilaa iyo wuxuu socday sidaan filay 2016 actor ana ka ahay attrition waxa ka ahayd xawo degan maxaa la yiraahdaa dad badan oo hadda filmkaas oo caan ku jiray oo dhintay waa jiraan ilaa uu naxariisto marka filmkaas hadduu soo baxay asaga laftirkiisa taariikhdiisu leeyahay ma shariyar waa film aad u fiican runtii waana film marwadaadu ay ku guli jirto oo runtii aad u qiimo badan waxaan rabaa markana inaan ku weydiiyo musalsal hadeer sidaad ka dhawaajisayba socdo oo habboon la yiraahdo habboon dadka aad u soo jiitay adiguna doorka waxaad ciyaaraysaa jilaaga koobaad ah filmkaas horta yaa qoray intaanan faahfaahintiisa u sii guda galin filmkaas qoraay badan qoreen waa sax oo maadaama filmka taxana yahay xalqabo maaragtay dhowrka xalqabo qof qoray marka xalqooyinkii uu kala xiran tahay marka waxaan u maleynayaa filmkaas inay qoraayaasha uu kamid yahay Otanga Warsam Shile iyo Qadar Ibrahim marka kulli xalqooyin kale oo jiri karaan inuu dadka la qoreen laakiin inta xalqo hadda aan soo fiirsanay dadka kaalinta ka geystay intaas waa adiga qaybtay aad ku soo jiidatay oo xalqa ma leedahay xalqada aad ku soo jiidatay wallahi xalqa gaar oo soo jiidata ma jirto si guud oo filmka marka fiirisidbo problemka ugu badan ba ma aragtay iyo shaqada ugu badan xaliyaha dhan ba aniga waa haysato mar oo aan jacayl bilaabayo mar aan coronavirus iyo karantiil isbitaal aan ku jiro
hadartaan uu maraayo maaragtay xirsi iyo kadaba wareegiisii iyo buuqiisii marka weli maaragtay ma dhihi karo xalqadaasaan maaragtay aad ugu helay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin ma dhihi karo xalqo gaara ma sheegi karo hadda oo aan ka helay waayahay qayb ma jirtaa ma la dhihi karaa qayb adagaa ku jirta filimkaas intii aad jilaysay oo xoogaa caqabada aad kala kulanteen adiga iyo saaxiibada qaybo badan oo adagaa ku jiro weli qaar waa dhiman yihiin qaarna waa soo dhaafnay marka inaan ka hor dhacno ma rabo marka qaybo badan oo adagaa ku jiro oo marxalado badan laga maray waa sax si kale markaan u fiirino isla su-aashaas qaybaha markaan ka baxno oo si guud filimka uga hadalno caqabado kale oo aad si guud ula kulanteen ma jireen intii filimku soo dabcan marka aad filim sameynaysaan inta kale filimkuna uu yahay maxaa la yiraahdaa filim la rabo inuu noqdo filim ka duwan filimaanta hore loo soo sameyn jiray haddana uu maaragtay taxano yahay oo badanaan Soomaalida aysan taxano sameynin tayana la rabo waa dareemi kartaa caqabad la maraayo waa sax waxaa la marayaa caqabad badan ha noqoto shaqada in la daalo in juhdi badan la geliyo in maskax badan la geliyo inaad dialogue xafidid oo ilaalisid maaragtay mawduuca inaadan ka bixin waxyaabaha hadda filimkeena uu maaragtay ku qurux badnaado waxaa ka mid ah dialogue in aan la iska hadlaynin qof walba wuxuu rabo iska sheegaynin oo maaragtay qof walba warka uu ka hadlaayo kooban yahay ayada laftirkeeda caqabad waayo marka characteriska laftirkeeda maxaa la yiraahdaa waxa kugu soo aadayo aniga hadartaan filimka waxaan ku haystay xirsi characterkiisa waa characterka kaliya oo marka aan la jilaayo kaamirada aan dhaho war haleega jaro macnaha oo aan qosolka isku celin waayo waa in aad u kaftan badan xirsi macnaha caadiyan markii oo yani serious u sameeyaa waa nin actor ma sha Allah doorku uu jilayna door waxa ah maaragtay cajiibteeda leh maaragtay oo u baahan in waxa la yiraahdo qof kasta uu sakeeni karin marka qaar markii uu Carabi gaja oo laga rabo inuu ku hadlo af Soomaaliya gaja ahaay marka qaar waa qosli jiro waxa jiray kaamirada socoto oo filimka la rabo maaragtay qayb xaalad serious in la madal xanaaq in la sameeyo la rabo iska qoslaayo markaas waxa la war meesha salaga qabto dib la ugu celiyaan dhaay marka caqabadaha characterkaas oo kale waa kamid tahay qof waxa kula jili kar maxaa la yiraahdaa dareen socda oo marka qaar qaybaha oo dareenka oohinta kale ama qaybaha calool xumada kale sameeynaayo markay aragtid waa la calool xumaanaysa oo ku sameeynaya marka film marba da sameynaysid character walba aad la kulmaysid saameyntiisa leedahay ama qofka aad la kulmaysid filimkan waxa la isweydiinayaa imisa goobood ama imisa magaalo ama imisa degmo ayaa filimkan lagu jiray lama xisaabin karo horta waa badan yihiin waa sax hadana filimku ma aha filim oo bilow ilaa dhamaad waa filim taxana waa sax marba meesha lugtana la gasho ayaad la tagay waa tahay si fiican u fahmay filimkan dabcan aad u dheer yahay dadkuna waxay sugayaan qaybta ka sii dambaysa jilistiisu goorma ayay bilaabatay goorma ayayna soo gabagabowday waqti intee la eg ay qaadatay in filimkan la jiro filimka waxaan bilaabnay waxaan u maleynayaa June meelahaas inaan bilaabno shaqadiisa gabagabadiisa laakiin ilaa hadda waa weli shaqa ku socota macadda waayahay adiga shakhsiyan ahaan markaan ku soo noqono filimkan dadkii waa daawadeen bulsho badan ay kuga soo xirantay falcelin noocee ah ayaad la kulantay horta falcelinta koowaad waxay tahay filimka inaan aniga laba qof noqday qofka koowaad aniga waxaan noqday laba qofood oo Cabdiweli oo awal Cabdiweliga ahay iyo Jamaal waaran hadda inta badan Cabdiweligi waxa ka sii saameyn batay Jamaal waxaan arkaysaa Jamaal hadda magaciiga caadi uu noqday markii filimka la shaqeynayo directorka iyo waxa teamka waxa la dhihi jiray maxaa la dhahaa qofka walbo
filimka inta la jilaayo ama crewga shaqada lagu jiro qof walba waxa loogu wacaa magaca filimka ku jilaayo ama marba hadii hawsha ha noqoto wax walba marba hadii la soo galo shaqada hadii bilaabato magacayga oo Cabdiwiil xaq u ahay waxa ahay Jamaal lagu wacaa marka waa la soo qabsaday horta Ilaahay halaas uu gargaaray crewga iyo dadka filimka sameeynaayo oo dhan intii uu filimka socdo hawshiisii inta la duubayo dhan Jamaal la igu caayay oo mar alaala markaan albaabka ama meesha hawsha filimka lagu haayo ay bilaabanayso magacaas Jamaal ay bilaabanayay marka xitaa dadka qaar oo crewga kamid ah numberkayga Jamaal ugu qornaa hadda bulshada marka magaaladii waxay la sii qabsatay magacii Jamaal magacii Jamaal wuxuu noqday marka qof labaad ama magac labaad ugu soo biiray markii mar labaad waan qal u sameeysto waay waxa naanaystan ama magacan labaadeed lagu bixiyay waxa ka horeysay naanays dabcan aan ahayd Samir way ka saameyn badnaatay xitaa Samir laftirkeeda waxay ugu baxday filim naanaysta Samir wuxuu ugu baxday filimka Jacayl Malacag ba filimkaas magaca Samir ku jilaayay markii dambe waataan buugaag dhowr buugaag qorana way jirtaa buugaagta aan qori jirayna macnaha waxaan raaci jiray magacayga Cabdiwiil Cumar Samir naanas ahaan maadaama magacii sida hadda Jamaal oo kaleeto oo magacaas waagaas markaas saas u noqday hadda taan laakiin Samir iyo Cabdiwiil waxa lugta mariyay Jamaal lugta mariyay waa sidii u kala dambeeyeen marba waxa waaye aktarada waa laba nooc waay badan hadda sida anaga waxaan fiirsanaa filmaanta Hindida aktarada Hindida inta badan magaca loo wada yaqaano iyo magacooda saxda ah isma laha marka actor walba magacii filimkaas soo baxo ama filimka saameyn yeesho magaciisa ku dhago waayahay Cabdiwiil dhanka jilista ayaad hadeer xooga saaraysaa aflaamta horta aflaam noocee ayaad jeceshahay inaad jisho adigu aniga caadiyan ba ma jecli filmaanta guusha ku dhamaado macnaha markaas saas ku dhahay waxay tahay filmaanta tusaale ahaan waxa waaye qiso ka hadlaa filimka tusaale ahaan wiil yar oo halgamaayo ka hadlaya kaasoo kaleeto inta badan uu soo mara rafaad caqabado badan oo ku fiican tahay tusaale ahaan filimka duu jecel yahay kaleeto waxaan iska jeclahay inuu filimka qasaaro ku dhamaado marbo rafaad ku dhamaado waa aniga macnaha rabitaankayga ama jaceelkayga laakiin qoraaga filimka qoraayo oo filmaanta aan sameeyo ama filmaanta qof walba ama buugaagta noqoto qofba waxbuu jecel yahay laakiin waxa aniga hadaan qoraayo oo anigaba aan sameynayo ama taladeeda ay tahay filimkaas guulna ku dhamaado ma jecel film aad qortay oo guul darro ku dhamaado ma jira waa jira Jacayl Malacag baa guul darro ku dhamaanaa kaasa kamid ah buugaan qoray buugta aan qoran miligiis mid guul ku dhamaado ma jiro mid walba guul daraan ku dhameeyaa waxa dabcan dad badan ay isku dayayaan aflaam ay qoreen ama sheekooyin ay qoreen inaad jilaaga koobaad ka noqoto waxaana laga yaabaa hadeer dalabaad fara badan inaad la kulmayso ma lagu keenay filim jilaagiisa koobaad uu yahay qof jir ahaan qof xoogan ah ma se qorsheynaysaa inaad jirkaaga aad u dhisto caadiyan hadartaan almiito waan galaa oo waan sameeyaa almiito laakiin weli almiitihii muruqihii waaweynaa kala gogo'naay ma sameynin laakiin marba haddii ay timaado sheeko noocaas ah waqtiyaa la siiyaa wax walba ogta in la isdhiso waqti badan ma qaadanayso laakiin caadiyan aniga hadda qof almiita ahay oo qof almiita sameeya ahay habeen walba almiita galo laakiin xooga ma saarin inaan aniga isweyneeyo anaana saarin laakiin haddii ay imaato ka waran hadday timaado almost waxaan u malaynayaa inaysan 3 bil igu qaadanin daadiyad oo hawshaas aad geli doonto waa wixii almiita ah aniga waxba uma arko waayahay dhalinyaro badan ma kula soo xiriireen oo raba inay wax jilaan markii ay filimkan ka dhax arkeen oo si gooni ah ma ku yiraahdeen waxaan rabnaa inaan ku soo biirno waa jiraan way jiraan qaar tale ii soo waco ama ila soo xiriiro inta is arki weynay waan ka cudur daaranayaa ama is xiriirkeen uu kulmi waaye intaan is aragnayna ma aragtay qofkii tale iga baahnayna tale waa siiyey qofkii caawinaad iga baahnayna caawinaad wuxuu iga baahnaay intaan kari kara uu sameeyay waayahay qofka markuu rabo inuu jilaan noqdo maxaa la gudboon maxaase looga baahan yahay wallahi waxaa la gudboon horta waxaan waxa waaye jaceelka adigu u qabtay ku xiran tahay marba waxa haddaa adiga jeceshahay waa samayn kartaa marka
shaqo walbo marka adiga aad jeceshahay way kuu fududahay marka waxaan aaminsanahay qofka inuu jilaan noqdo rabo qalab uma xirnaanayo maxaa la yiraahdaa qof kaleeto inuu soo saarano uma xirnaanayo maxaa la yiraahdaa asaga xooggiisa saari karo marka wax gaar oo u baahan yahay qofkaas oo inuu jilaan noqdo inuu rabitaanka asaga ay ka go'an tahay marka laga soo tago wax kale u baahan yahay uma maleena wixii kale waa uu iska dheeriyo tala iyo maaragtay inuu dad kale caawiyaan waa caawin sax waa inuu xoog saaro markaas mar walba asaga uu xoog saaro waxa qofkaas uu guuleysanayo hubala dhanka filimada Soomaalidu jisho markaad u fiirisay ma jiraan qisooyin aanan weli la warin oo adiga ku muuqdo baahiyo aad dareemayso ma jiraan oo isleeda Allah ilaahay dhankaas iyo dhankaas in aflaam laga sameeyo way fiicnaan lahayd ani ahaan waxaan aaminsanahay qisooyinka filmaanta Soomaalida inta la sameeyay 3% waa ama 5% 95% yani qisooyin badan oo dhacdooyin ha noqdaan ama dareen ha noqdaan waxaan aaminsanahay in laga warwareegayo waxaa jiro qisooyin badan oo anaga nagu tacalluqo ilaa hadda waxaan ka daba wareeganaynaa maaragtay badanaa jaceyl iyo family iyo filmaan iska normal aan ka daba wareegaynaa laakiin Soomaaliya waxaan u maleynayaa sida aan qeyraadkeeda loo taaban oo kale ta wali filmaanteeda looma taaban sheekooyinkii qisooyinku dhex duuban way buuxaan qisooyin badan buuxo طبعا haddii qisooyinku buuxaanna fursado ayaa u banaanaya dadka iyo dadka wax jira intaba qoraaga maanta Soomaaliyeed haddii uu isku dayo inuu wax qoro kaliya hadduu baxo maanta soobe ilaa iyo dabka bisle uu tago wuxuu ka sameyn karaa 100 sheeko oo midka kale ay ka saameyn badan tahay waa sax ma aha inaan ka dabalaalaabano maaragtay filmaanta xitaa jaceylka laftirkiisa ayadoo jaceylka la sameynayo qofkan caqabad uu leeyahay tusaale ahaan markii reality wax loo abaaro aniga hadda maanta noloshayda ama shakhsiyadeyda haddii la dhoo filna laga sameynaya waxaan aaminsanahay wax cajiib ay noqonay adiga sidoo kaleeto qof walbo maanta haddii maanta ka waran laga dhaho ninka krishboyga ama ninka bajaajta wada filna laga sameeyo waxaan aaminsanahay filimaan adduunka ka gadmaa qisooyinkooda in la helayo aad iyo aad Abduul aad u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gunaanadkii wada sheekaysigeena alaaba gunaanadka waxaan ku soo gabagabeeyaa qayb number iyo nasiib ah oo dabcan ka duwan su'aalihii hore aanan ugu talagalay inaan ku nasano aniga iyo qof kasta oo marti iyo markaas qaybtan waxaan eegaynaa nambaro ayaa waxa ku xusan waxyaabo kala duwan nambaradaas marka waxaan eegaynaa waxa aad jeceshahay iyo waxa ku soo baxay inay islaadaan iyo kale nasiibkeyga aad iyo aad waa 5 su'aal kastana 5 qaybood oo jawaab ah ay leedahay tan koobaad waxay tahay dabcan cunooyinka kala duwan nooca aad jeceshahay ayaan fiirinaynaa nambarada aad kala dooranaysaana waxay u dhaxeeyaan 51 ilaa 55 lambar kasta cuno gaar ah ayaa ku xusan 51 ku jirtaa 51 ku jirtaa 55 ku jirtaa waxaan dooranayaa 51 iyo 55 hal nambar aad dooranaysaa hal nambar ma dooranaa waxaa la jira dadka fulayaasha mar walba u dimaran nambarka ugu dambeeyay door ay 55 waayahay Abduuli waxa u maleynaa nambarka ku soo baxay inaad ku qosli doonto nambarka ku soo baxay wuxuu yahay weligaa ma maqashay cunno la yiraahdo yaryarey may oo cunto Soomaali kamid ah cunto Soomaali kamid ah may weligaa ma maqlin yaryarey yaabis lagu cuno yaab ma leedahay weli ma maqlin maya waayahay yaryarey waxa laga wadaa bukurey midda soorta lagu midda la tumo la kariyo oo caleenta oo sida koostada kale bukurey ma ah okay tani waxay ka agdhowdahay masagada ama haruurka ka agdhowdahay laakiin badanaa waxay ka baxdaa dhulka beeraha roobka ku baxo oo kale ayaa badanaa lagu beertaa waa runtii waxaan u maleynayaa adiga waa wuxuu ku jirtaa fildiga cambuulada Soomaaliya beel waa markaas hadii cambuulada ku jirto waayahay cambuulada waa jeclahay laakiin si kale markii loo fiiriyo cunooyinka nooca u jeceshahay maxaa kamid ah niyo cunooyinka caadiga ah cunooyinka jeclahay horta waa cuntada caadiga markii la dhaho bariiska oo kale waa jeclahay baastadii bariis oo kale bariiskan ka jeclahay
sida caadiga ah maalinta jimcaha anaga gurigeena subaxina cambuula ku quraacnaa haye qadadana sooran ka dhignaa waa sax yani waa soortoo kale halkaas maalin jimcaha aan aad dhiig ugu keenno haye laakiin cambuulada aniga hal habeen cambuulo ma seeray waayahay waa runtii cunno aad u fiican laakiin qofkii ku marti qaada dabcan bariiskaad u ishaaraysaa xilli qada hadday tahay oo kaleeto xilli qada soortii bariiska waa okay laakiin casho inta badan cambuulaan jeclaha waayahay nin labiska aad u jeclaata siiba midabo kala duwan ayaa door bidaa dhalinyarada suudka u badan oo ku jirtaa dabcan oo aadka suudka ugu labisa su-aashan waxay qusaysaa midabada aad qaadato dharka nooca aad jeceshahay okay bal waxaan eegaynaa nooca ay noqon doonaan markan waxaad kala xulanaysaa 56 ilaa 60 56 way ku jirtaa 60 way ku jirtaa ninkii hadda 55 ku fashilmay haye number dambe ma dooranaysid ama ما markaan inaan ku fashilmo u maleynaa 60 ka qaadana marka 60 ka qaadana 60 ka waxa ku soo baxay midabka bunniga asaas ku tii bunniga kafeega Soomaha ha midabkaas xoogaa ma jecli waa wuxuu ku yahay qaanadaha dambe ma aragtay in horweyta ma ogiye inaan aniga dukaan tagay muu qastin inaan soo gato aad ka waran midabada kale oo meesha ku xusanaan fiirinaynaa dabcan midabada qaar waxaan ku sheego masaada sheegay ii sheeg adigu markaas tusaalaan hadii ku jirto kale navy blue aad navy blue aad u jecelahay waa jecelahay haye blue light aad u jecelahay shaatiyaasha blue light ka ah ama fanaanada noqoto blue light horta navy blue iyo blue light number 1 iyo number 2 sax waxa ii soo kale maartay ii soo gala cadaanka kale shaatiyaasha kale deeyeen madowga kale to greyjo kale to grey shantaas color waa favorite kayga laakiin mar hadii oo waxa jirto tusaalaan sida taygo kale to taygo inta badan gaduudkan jeclahay iyo bluega aad laakiin dharka kale to blue light iyo navy blue waxa u maleynaa yaad u dhaxaysaa bismillah blue light waxa u maleynaa hadii dharka guriga la tago hadda ka hor waxa dhacday xaaskayga hal maalin waxay isla dhaqday 4 shaati oo blue light ah kaasi ayadoo xariga saartay waxay wada kaale waa isku eegin waxaan blue light ka maxaa ku wada jeclaatay sax marka blue light ka aad u jeclahay qurux badan markan waxaan eegaynaa waxaad ku dhex jirtaa dhankii aflaamta ayaad ku dhex jirtaa marka waxaan ku weydiinaynaa ama nasiibkana uu ku saabsan yahay actorka aad ku dayato iyo nasiibkaaga aan isku fiirinaynaa jilaayaashii hore ayaa ka mid noqon kara jilaayaal maanta jooga ku jira markana nasiibkaaga wuxuu u dhaxeeyaa 61 ilaa 65 niyow ilaahay ku aadiyo lambar aad xulato 65 ku eega mahom markaan dhaxdan qabsanahay 62 qabsatay 62 Cabduliyo waxa ku soo baxay Shahrukh Khan inaad ku dayato Shahrukh Khan ka waran aflaamtiisa niyo horta inta meesha ma aragtay wax sheega wax sax ma isku aadeenin haye niyo Shahrukh Khan waa actor haye dad badan ay jecel yihiin haye hindidana aad loogu jecel yahay aad nin xun maaha aad laakiin dhan kale u janjeertaa laakiin marka loo barbar dhigo aniga tayda aniga hindida marka la dhaho yaad ka xulanaysaa laba nin ka taageera dadka hore horta ma xisaabsado haye laakiin dadka dambe Hrithik Roshan aan taageera laakiin dadka hore hadaan aado Amir Khan ninkaas la joogan haye waayahay ilaa iyo hadeer 3 nasiib midna waa hagaagi waayay haye bal waxaan isku dayaynaa markana labada soo hartay in bal nasiibkaasi ku saxmo horta shaleemooyin ma geli jirta waagaa jiray decoder ama shaleemo ma geli jirta aad su'aashan waxay qusaysaa filimkii ugu horeeyay abid aad gasho ama aad daawato ayuu nasiibkani dabcan quseeyaa haddii
jawaabta halkan ka soo baxda ay tii saxdeed noqon weysid waad nooga sheekayn doontaa markan waxaad xulanaysaa 66 ilaa 70 66 ilaa 70 sinko 70 ka xulna markaan 70 ka xulatay 70 waa riwaayad Soomaaliyeed ama waa film dabcan anagu riwaayadaan dhahnaa filmaanta mugti cilmi iyo caado ma daawato bili cilmi iyo caado waa maqlay weli ma daawan laakiin waa film caan oo ma aragtay caan oo dadka Soomaaliyeed jecel yihiin laakiin weli ma daawan filmka ugu horeeyay ma xasuusan niyo horta ma xasuusan karo laakiin waxaan xasuustaa shaleemadii oo aan tagi jirnay shaleemo jeex oo barxad wardhigle ku taalay waxaan sameyn jirnay ma kala jecleen filmku rabo ha socdo laakiin waxaan sameyn jirnay kabaan dhigi jirnay waxaan dhigi jirnay waxaan yiraahdaa cilmiga ka soo fiirsanaa sida caadiga Soomaalida ay caan ku tahay oo la sameyn jiray markii shaleemada ay gelisay dad lacag wadan kaba laga reebaya marka waxaan sameyn jirnay kaba oo maaragtay kuweena aan ahayn aan dhigi jirnay kabtaan yahay waa qof ka soo fiirsanaya sidii marka marka shaleemo jeex waa la yaqaan reerigii oo dhan waa yaqaanaan shaleemadaasaan maaragtay saas ku gali jiray ciyaar ha noqoto maxaa la yiraahdaa film ha noqoto wixii markaas socdaan soo fiirsan jirnay waayahay taasi waa saxmi weysay bal nasiibka ugu dambeeya Cabduuli waxa maleynaa markaad wax dooranayso ama nasiibkaaga xoogaa marka qaar nasiibka xoogaa culays ama caqabada dhankaas ka jirta maleynaa waxa u maleynayaa anaa mar walba numberka dambe doorano fulay marka numberka horaan qabsanayay markan mustaqbalka shakhsi noocee ah ayaa jeceshahay inaad noqoto dabcan qorshe ayaa ku degsan qorshe nololeed markana meeshan waxa ku qoran waxyaabo kala duwan shakhsiyaad kala duwan halkan ku qoran waxaad kala dooranaysaa 71 ilaa 75 markan waxaan dooran doonaa 72 Cabduuli waxa soo baxday inaad aad u qorsheynayso inaad ganacsade weyn noqoto kawar hawshaas qorshahaas ma jiraan maya ganacsiga horta ganacsi qof diiday ma laha waa lacagtii waa lacag waaye oo qof walba inuu ganacsi samaysto oo lacag ka shaqeeyo uu jecel yahay laakiin aniga waxaan jeclahay inaan maxaa la yiraahdaa hogaamiye noqdo aad iyo aad siyaasadda aad ku birto waa siyaasi inaan hogaamiye noqdo ganacsiga laakiin maadaama hadda soo baxay waxaan u maleynayaa marka inaan ganacsado noqon doono aad iyo aad hogaamiyaha ama siyaasigu wuxuu ku jiray numberka 17aad hal number ayaa waa u dhawaatay aad iyo aad Cabduuli Cumar aad u mahadsan tahay waqtigaada siisana waan kaaga mahadcelinayaa waxaan filayaa xog badan oo dad taageerayaal ku ah ay u baahnaayeen inaad maanta faahfaahisay mar kale mahadsanid haddii sareeya saamaxna waxaan rajaynayaa mar kale inaan sidan u wada sheekaysan doono insha Allah saaxiibayaal wada sheekaysiga aniga iyo Cabduuli Cumar oo Soomaalidu hadeer ay u taqaano Jamaal sidoo kalena hore loogu aqoon jiray Samiir intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan muuqaalkeena dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo